markaa tahay camera operator ama qof ku howlgalo ama bala xirfada kamerada waxaa waajib ah inaad taqaanid hidden room, leading room, frames, short tapes iyo qaar kaloo badan. soo noqod wanaagsan. magacaygu waa Cabditax Xuseen, Cabditax Bulsho. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ee halkan aan ugu soo booqatay, ha iloobin aad subscribe noo dhaadid channelka si u gaarno 2000 subscribers. share garee muuqaalka haddii aad ka heshayna ugu dambeyntii like ta saar si uu meel fog u gaaro. waad mahadsantihiin. haddaba maanta maxaa idin hayaa? maanta waxaan rabaa marka inaan idinla wadaago in badan oo laga yaabo inaysan ogeyn headroomka waxa la dhaho. headroom waa in madaxaaga ilaa iyo inta ugu sarreyso ee ay kamerada hayso farqiga u dhexeeya ayaa waxaa la dhahaa headroom. sidoo kalena halka qofka la wareysanayo uu u sii jeedo amaba qofka soconayo uu u sii jeedo ayadana waxaa la dhahaa leading room. haddaba maxaa marka la ogol yahay, maxaase la ogoleen? headroomka wuxuu leeyahay waxa la dhaho too much headroom iyo little headroom iyo normal. okay, too much headroom waa in badan oo xaddi ah oo space oo bannaan uu u dhexeeyo madaxaaga iyo sidoo kale inta ay kamerada hayso oo ah saqafka. tusaale ahaan madaxayga iyo inta kore oo kale farqiga u dhexeeya ayaa waxaa la dhahaa haddii uu bato too much headroom amaba headroom aad u sarreeyo ama aad u badan. sidoo kale taas marka lama ogolo. sidoo kalena waxaanan la ogoleen little headroom oo ah in farqiga u dhexeeyo madaxa ama spaceka madaxa subjectiga ah iyo inta u dhexeyso maxaa la dhihi jiray kamerada hayso saqafka ah inuu yaraado amaba qaarkood oo intaanoo kale uu go-naado. kaasaa waxaa la dhahaa marka little headroom. haddaba maxaa loo baahan yahay oo la ogol yahay marka la joogo headroomka? waxaa la ogol yahay headroomka markaad joogtid in uu noqdo farqiga u dhexeeyo spaceka meesha ay kameradaada haysa ugu sarreysa iyo madaxaada in ay noqoto amaba ay ahaato normal. macnaha farqi xaddi intaanoo kaloo la eg inuu noqdo aada macquul u ah. haddaba haddii aad aragtay headroom, hadda waxaan rabaa inaan ku tuso maxaa waaye leading room amaba looking room, labadaba waa la dhahaa. leading roomka waa hadba halka uu qofka subjectiga ah u sii jeedo, gaar ahaan marka uu soconayo meesha u sii jeedo waxaa la dhahaa leading room. haddaba maxaa la ogol yahay ayadana? spaceka ka bannaan qofka meesha u sii jeedo ama subjectiga ayaa waxaa la rabaa in uu bato halkii uu badan lahaa meesha subjectiga uu ka imaaday amaba uu ka soo jeedo. waxaan filayaa marka inaad fahantay leading room. madaxda waxaa aragtaa markay soconayaan oo kale jaanis kuma siinayaan in aad wax saxatid sooma. saas darteed waa in aad kameradaada adoo baanin samaynayo aad la falgeshid hadba meesha uu u socdo qofkaasi mas-uulka inuu spaceka uu u bato halkii qaybta dambe oo dadka daba socdoo kale ay badan ay soo muuqan lahaayeen. haddaba waxaan filayaa in aad kala fahantay headroom iyo leading room. fadlan haddii aad muuqaalka wax un ka faa'iiday, ha iloobin inaad janaalka mar kale aan ku xasuusiyo inaad subscribe noo saartid isla markaana gambaleelka aa furatid. waad mahadsantihiin.